wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan ee aanu idinkula socodsiinno guud ahaan warbixinnada saacad kasta iyo dagal kasta. waxaan barnaamijkeennan ku soo gudbin doonnaa warbixinnaha xiise leh oo ku saabsan ciidanka Itoobiya kadib guulaha ay ka gaadheen qabsashada Kobolja iyo Dhazi, dagaal xoog leh oo ka socda xuduudda gobolka Tigreega uu la wadaago Amxaarada iyo gobolka Canfarta. falanqayn ayaad dhegaysan doontaan xaaladaha guud ee dalka Itoobiya iyo saamaynta ay ku leedahay dhulka Soomaalida, aragtida Amxaarada ee aaminsan Itoobiya oo weyn, sababaha Itoobiya ay u dooratay xilligani in dagaalka ee ka dhanka Tigreega ay ugu magac darto boqor Mililig, kalsoonida Abiy Ahmed ee uu ku qabo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida oo sababtay in dhammaan xuduudaha Itoobiya ay la wareegaan oo la geeyo ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo awoodda ee ciidanka dowlad deegaanku uu kaga jiro maamulada kale ee dalka Itoobiya. warbixinadani iyo falanqaynada kale ee dheeriga ah waxaan isla fiirin doonaa oo khadka telefoonka toos ugu jira Siraaj Aadan Xasan oo ah falanqeeye nagala qayb gala barnaamijyadani ee quseeya arrimaha xiisadda ee dalka Itoobiya. Siraaji, mar kale farxad bay noo tahay inaan kulanno. toddobaadyadani waxaan aad uga hadlaynay dagaalka dalka Itoobiya. wararka ugu dambeeyay aan helaynaana hadda waxay sheegayaan in ciidamada dowladdu ay la wareegeen Kobolja iyo Dhazi. bal marka hore waxaad u sharaxdaa dhagaystayaasha muhiimadda ay leeyihiin magaalooyinkani inay qabsato dowladda. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad baad mahadsantahay Shiine. magaalooyinkani waxay muhiimad leeyihiin waa meelihii ugu dambeeyay ee ugu muhiimsanaa xagga military ahaan, waana magaalooyinkii ugu waaweynaa ay ka soo fidi karayeen dhinac walbana ay qoladani uga bixi karaysay deegaamada kale iyo wadooyinka deegaankoodana ay ka tegi karayeen. marka military ahaan iyo dhinaca maartaqaanaa shacab ahaan iyo magaalo ahaan dhinac walba ahmiyad weyn bay leeyihiin labadan magaalo. waan gartay qabsashadan dowladda ee Kobolja iyo Dhazi iyo Bati miyaan ku tilmaami karnaa in dagaalka Itoobiya uu gabaabsi joogo? maya kuma tilmaami karno, inkastoo dee hadda ay muuqato nimankii in dib loo jabiyey, dhirbaaxo weyna lagu dhuftay. haddana marka xaqiiqda aanu eegno goobahani goobo lagu dagaalamay ma aha, ciidankoodiina way kala baxeen. marka awooddii ilaa halkan soo gaadhay, jabka gaadhay wuxuu noqonayaa xagga saabalaygii iyo diyaaradaha, marka inay dhinac isugu bateen oo xagga deegaankoodii ay doonayaan baad moodaa inay dib dagaal uga soo galaan ama qorshe kale oo weli cadaanin ba ay leeyihiin. marka guud ahaan dowladdii wejigii hore ee dagaalka way ku guulaysatay baan odhan karnaa, laakiin dagaalkii uu soo afjarmay iyo uu dhammaaday midna maba odhan karno. xitaa hadduu kani dhammaadaba ku kale la geli doonaa Itoobiya sidaan saadaalinaya anugu. waayahay, hadda intaad ka warhayso Itoobiya waxay damacsan tahay inay hore ugu socoto Tigreega, mise waxay ku ekaan doontaa dhulkan ay qaybsatay Amxaarada iyo Canfarta oo hore ay uga qabsadeen gobolada? oo fikir ahaan ma filayo in iyaga laftooduna imika awoodoodan ugu dambaysay xagga Addis Ababa mar haddii ay ka durkisay dowladdu. siyaasad ahaan waxaan filayaa in deegaankoodii ayna ugu tegaynin, laakiin inay isku dayso deegaanka Amxaarada goobaha ay ka haystaan in ay ka wada dhamaystiraan. dhinaca kale waxaan la garan karaynin qoomiyadda Amxaarada oo imika dagaalkan u ah xudun ama udub dhexaad, qorshayaashooda ay ku hogaaminayaan dagaalka oo ka baxsanaan kara kan dowladdu ay wadato iyo labada qorshe si la isu waafajin karo. iyagu waxa laga yaabaa inay doonayaan in laga daba tago deegaankoodii oo sida magaalooyinkooda u burbureen loo burburiyo. waxaan laga yaabaa inay isleeyihiin waa inaad hubisaan ka qoomiyad ahaan in xaggooda ayna khatar idinkaga imanin. marka fikirka dowladda iyo kan qoomiyadda Amxaarada qaabka la isu waafajinayaa adag. dagaalkan hadda ay ku qaatay Itoobiya Tigreega waxay ugu magac dartay Mililig. maxay u doorteen ayaan dhihi karnaa Itoobiya in magacan ay u doortaan? sida caadiga ah dagaalkan waxaa kalifay hormoodna ka ah qoomiyadda Amxaarada. qoomiyadda Amxaaradu waa in la isweydiiyo simple question, hal su'aala oo ah dagaalkan maxay naf iyo maalba ugu hureen. waxay ugu hurayaan waxa weeyaan sida magacu uu ku sheegayo ujeedooyinka dagaalkan inay soo celiyaan nidaamkii Itoobiya ee hore ee boqor Mililig. hadda maadaama boqortooyo ka suuroobaynin in at least ay soo celiyaan Ethiopian Andinet wax la yiraahdo
dastuurka meesha laga saaro federalismka waxayna u arkaan qoomiyadda kaleeta ee waxana samaysay challenge-na ku arrin qoomiyadda tahay dagaalkana saas ugu magac daray boqor mililik siraajo ereygaas dad badan baa inta badan aan ka maqalnaa inkastoo dadka ila midka iyo Soomaali kale ay macnihiisa aqoon ereygaas macnihiisu muxuu yahay mililik 1 iyo mililik 2 baa jira marka boqorkii Itoobiya dhidibada u aasay ee dawladnimadii ugu horeysay Itoobiya ahayd in Itoobiya ay noqoto dawlad la yaqaan oo xuduud leh oo nidaam leh oo dawli ah boqorkii ka hirgeliyay weeyaan wuxuuna ahaa boqorkii nidaamkan xabashida iyo waxan ugu horeeyay ee dhanka dawladda hirgeliyay weeyaan ilaa haddana ay aaminsan yihiin waa Itoobiya hal mid una oo leh hal af hal ciidan hal calan oo qoomiyadda fikirkan qoomiyadaha ku dhisan ee qoomiyadda Soomaalida qoomiyadda Amxaarada in uu meesha ka baxo weeyaan oo la yiraahdo magaca Itoobiya ama federalism hadii la yiraahdana magacaan kale oo qoomi ahayn oo qoomiyad qeexaynin in loo bixiyo marka Itoobiya mid aweeyaan macnaheedu boqor mililik siyaasadiisa muxuu ka aaminsanaa isagu Itoobiya iyo dhulka Soomaalida iyo wuxuu ka aaminsanaa in Soomaalidu ay yihiin dad ku yimid deegaanka dhul daaqsi oo dhul ballaarsi ah kolka wax xuquuqna ma balahayn dhulka iyo dadkaba dawladda iska lahayd waxa laga aaminsanaa dad marka xoolo dhaqata ku yimid wax xuquuqna aan ku lahayn guud ahaan Itoobiya fikirkaas uu ka aaminsanaa xabashuuna fikirka aaminsan tahay waa sida way marka hadda siyaasadda Itoobiya oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaan ku tilmaami karnaa mid ay go'aaminayaan Amxaarada Amxaaradu markii hore horta xisbigan ba maxay u taageeraan xisbigan BB-da arrimaha u qarsoon waxa weeyaan waxa la yiraahdo madhamartu maxay tahay horta nidaamka dawladaha loo maamulo waa la yaqaanaa ma socialistiba ma dimuqraadiba ma monarchiba ma dictatorba midna ma aha waa arrin laga soo dheegay nidaamka diinta orthodoxka iyo bendeega ujeedaduna waxa weeyaan Itoobiya in la soo wada celiyo marka fikirkan xabashuda u taageerayso waa ka hadda marka cidda ugu xoog roon ee dagaalkan xudunta u ah waxgaradka xabashida miiriyahooda activistiyadoodii looma kala harin sida darteed isagu hadda wuxuu bartanka ugu jiraa talaabo una ka noqon kareen oo xitaa damco inuu heshiis la galan nimankii dhulkoodii in la soo celiyo xabashi markaa kama suuroobaysa iyagoo baaba'ay dhulkii ay qabsadeen inay ka soo noqdaan haddana ay aqbalaan Itoobiya in dastuurkani uu sii shaqeeyo ma aqbalayaan marka hadda way ku xirxiran yihiin marka suu lugaha uga baxa adkaanaysa haddaan ku akhriyo in yar Tarara Media Network meesha la yiraahdo waa meesha laga hago waxgaradka xabashida isaat dhamaan waxay ku leeyihiin oo soo qoreen Itoobiya dagaalka TPLF kadib waxyaabaha loo baahan yahay Abiy inuu ku talaabsado koow waa inuu khiyaaliga ka baxo waa inuu dastuurka meesha ka saaro qoomiyadaha ku dhisan liyu booliska la baabi'iyo talaabada ugu horeysa dagaalka saada looga farxasho waa inay talaabada noqoto ay leeyihiin waayahay arrinta hadda aad soo hadal qaaday laba maalmood ka hor maamulku wuxuu tababar u soo xidhay ciidan aad u badan wuxuuna sheegay in ay hadda ciidamada liyu booliska ay ilaalinayaan xuduudo badan oo dalka Itoobiya ah ilaa iyo dhanka Soomaaliya Djibouti iyo xataa Kenya in ciidamo Soomaali ah hadda amniga Itoobiya inuu ku xidhan yahay haddii laga faa'iideysanayo muhiimad inta laag bay leedahay muhiimad aad u fiican bay leedahay laakiin imika liyu booliska waxaan oran karnaa ka qoomiyad ahaan waa qoomiyadda afraad baan oran karnaa waxa ka sarreysa uun xagga liyu booliska ama tiradiisa ama tayadooda qoomiyadaha Oromada xabashida iyo Tigreegan dagaalamaya laftiisa marka waa cudud adag oo haddii si fiican ay hogaamin u helaan oo lagu beero nidaam hogaaminada siyaasadeed waa cudud adag oo deegaanka danihiisa difaaci karta haddii khatar ay ku timaado laakiin hadda aloolahan socda oo dawlad deegaanka Soomaalida maamulkiisuna ay taageersan yihiin ee xabashidu horboodayso liyu booliskanuba ka bilaabaya markay guuleystaan in la baabi'iyo marka wax iswaafaqi kara ma aha in liyu boolis la tababaro cusub iyo aloolaha la taageerayo wax isla ma aha waa contra indicator wax iska hor imanaya weeyaan xabashidu ma ogola miyaa ciidan awood leh oo maamul goboleed oo Itoobiya ka talinaya totally xabashidu waxay ogoshahay waxa weeyaan waa ciidan dawladda federaalka ay xukunto oo kaliyeeta si dhul walba xabashidu waa dad ku faafsan Itoobiya oo dhan magaalo ay deganeen ma jiro marka nidaamka qoomiga ah door siyaasadeed ma siinayo dadka kale ee ku dhaxnool hadda xabashida jigjiga ku nool ama dhagax buur ku nool lama dooran karo
sida darteed waxay doonayaan wadan meel kaliya laga hago ay xuquuq siyaasadeed ku yeeshaan dhagax buuri laga sharxi karo jigjiga laga soo sharxi karo xuquuq la siban yahay ciidanku marka waxay leeyihiin waa inuu noqdo hal ciidan oo meel uu laga amro marka ciidankan qoomiyadda ku salaysan ee qoomiyaddan amrayso waa inuu meesha ka baxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya ma laga yaabaa in wada hadal uu aqbalo ma laga yaabaa in Tigreega laftigoodu ay tanaasulaan oo maadaama ay arkeen dhibaatada uu leeyahay dagaalka ay wada hadal la galaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya aad iyo aad bay suuragal u tahay wada hadalka horta abiyina ma diidana Tigreeguna ma diidana laakiin hal qodob oo imika wada hadalka adkaynaya waxa weeyaan ujeedada xabashidu ay lahayd hadda dhulkii Tigreegu ay lahaayeen waqtigii dagaalka ka hor ee la yaqaanay oo ugu muhiimsan tahay Humeera dhulka Tigreegu asalba ma aha dhul wax ka baxan meelahi hadda dhul daaqsimeedka ee Suudaan xuduudda la lahaa waa dhulkan hadda Humeeriya gaarka ay xabashidu haysato waxay leeyihiin dhulka annaga iska leh haddii markaa la damco in wada hadal la galo oo hadalkii la bilaabo shuruudu waxay noqotay kow horta in deegaankoodii looga baxo xabashina deegaanka inay ka baxaan ma ogola dagaalkana waxay u galeen in nidaamka federalismku uu meesha ka baxo marka waxa adkaan doonta wada hadalka ra-iisul wasaaruhu uu galayo waqtigan nooca ay noqonayaan iyo xabashi qaabka uu oranayo uga soo baxa dhulka oo suuragal ahayn iyaga oo dhintay magaalooyinkoodii ay baaba'een haddana inayna dagaalka ujeedada ugu muhiimsan ay rabaan dagaalku inuu ku dhamaado guul arkaan waxa weeyaan waa in dhulkaana ay haystaan nidaamka federalismku meesha ka baxo liyu booliska la baabiyo ethnic federalism wax la yiraahdo uuna jirin oo qoomiyada ku salaysan guud ahaan marka taas sidoo uu horgelin kara ayaa ku adkaan doonta laakiin wada hadal aad bay suuragal ugu tahay labada dhinacba way u baahan yihiin dhinaca kale ma la dhihi karaa dhinacyada is-aaminaadoodii baa aad u adkaanaysa maadaama dawladuna ay aaminsan tahay haddii dagaalkan ay joojiso in Tigreegu ay soo rogaal celinayaan aad iyo aad bay tahay hadda xisbigan dhexdiisa waxa la sheegaya hadda nimankan aan ku sheegay waxa kamid ah in xitaa khilaaf uu ku dhex jiro xisbiga BB-da dhexdiisa oo dagaalka ku saabsan even xitaa waxay sheegayaan in dawlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda Abiy uu khilaaf xagga dagaalkii ka dhaxeeyo in dagaalka ka qayb galin marka guud ahaanba khilaaf baa jira xisbiga u dhaxeeyo oo dagaalka ku saabsan haddii imika dawladdu ay wada hadal gashana khilaafku uu sii ballaarani dagaalka haddii la sii wadana uu sii ballaaran labadaba aad baad mahadsantahay Siraaji inta ku kulmi doono falanqeynadeena xiga waa shiraan oo idinku dhaafaya nabadgelyo